isku soo noqdo ciyaarta meel walba joogta oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doono kulankii ka dhacay gegada Santiago Bernabeu. Real Madrid oo cardaadiqada ka dhigtay Barcelona hogaanka horyaalka Spain kali ku noqotay markii ay iska reebeen kooxda kubadda cagta ee Catalonia ee Barcelona. Haddii aad muuqaalka ka hesho noolaa garay kanka subscribe noo sar. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa galabta gegadeeda Santiago Bernabeu ku qaabishay kooxda ee isku la xifaaltamaan horyaalka Spain ee Barca xilli ciyaartu ee Real Madrid kaga adkaatay 3 gool iyo gool. Barca waxaa la yiri tabar ma hayso kuma haysiine iska jooga horyaalkana iska keena ayaa la yiri hogaanka horyaalka Isbaanishka. Haata waxa ku raaxaysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xilli ay Bernabeu ku xasuuqeen kooxda dhigooda ee Barcelona. ciyaarta markay ay bilaabatay daqiiqada 12 Super Karim Benzema ayaa kubad cajiiba shabaqa dhex dhigay ciyaartana ka dhigay hal gool iyo waxba inay Madrid kaga horkacdo kooxda kubadda cagta ee Barca. ciyaarta cabaar markay ay socotana Federico Valverde ayaa ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo waxba kubad saaruuqeed oo banaanka uu ka garaacay ayuu istaagan qabo waayo shabaqana sida ay ku tagtay ciyaartan waxay noqotay Madrid qaybtii hore ee ciyaarta hogaaminayso oo 2 gool iyo waxba ay kaga horkacayaan kooxda kubadda cagta ee Madrid iyo Barcelona. ciyaartooda ciyaar xiiso badan ayay ahayd qaybtii hore. Real ayaana ku gacan sareysay laakiin qaybtii labaad markii dib la iskugu soo laabtay macallin Xavi ayaa bedelo badan sameeyay ciyaartana ku soo daray ciyaartooy dhowr ah oo kamid yahay Ferran Torres, Fati iyo Gavi. ciyaartana wax ka bedelay Real Madridna jawi degan ay iskaga jirtay oo kama qasneen ciyaarta. laakiin Barca gool waxa u soo celiyay daqiiqadii 85 ninka lagu magacaabo Ferran Torres ciyaartana ka dhigay 2 gool iyo gool inay kooxda kubadda cagta ee Malaki ciyaarta wali hogaanka ku soo laakiinse ciyaarta markay ay dhamaad ahayd ciyaartuna gabagaba ee ku dhowdahay ayaa rigooro loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Madrid waxaana qaatay ninka lagu magacaabo Rodrigo oo dhaliyay rigooradii ciyaartana ka dhigay inay Madrid 3 gool iyo gool kaga adkaadaan dhigooda Barca. Real Madrid haata hogaanka horyaalka ayaga ayaa kali ku oo Barca waa iska reeban. ugu dambeyn Clasico sida ayuu ku soo gabagaboobay Real Madridna haata horyaalka Spain ayaga kali ku oo waana kooxda kaliya horyaalka Spain haata ciyaaraysa unbeaten. Madrid 25 dhibcood ayay leedahay Barcelona 22 sida waxa u dhaxeeya farqi 3 dhibcood. Rodrigo Janis ayuu helay hal on target ayuu sameeyay goolna waa ku dhaliyay galabto. Real Madrid xidigaheeda iyo ayaguba performance fiican ay soo bandhigeen xilli Barcelona ee jahwareer ku jirto Champions League ma hayaan laakiin wali horyaalka Spain Real Madrid way kula dagaalami karaan waayo waa opportunity furan oo Real Madrid iyo Barca horyaalka wali waa furan yahay inkastoo Clasico laga adkaaday kama dhigina inay horyaalka ka niyo jabaan. haddii aad muuqaalka shan oo la garay kanka subscribe noo